على مسار أحمد مدوبة على الهاي ما هين على مسار أحمد مدوبة شلا وحا ماشاس لو على مساري أهورو كياتا أوس وكيل كياهي آدم بردو عالي boqolaal shacab ah oo dibadbaxayaal ah ayaa isku soo baxay magaalada Galbeharey ee xarunta gobolka Gedo dibadbaxan ayaa ahaa mid looga soo horjeeday faragelinta dawladda Kenya ay ka wado gudaha dalka Soomaaliya isla markaana ay ku diidan yihiin shacabka reer Galbeharey caleemasaar kale lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose banaanbaxayaasha ayaa socod ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada ugu danbeyn waxay iskugu yimaadeen taalada Galbeharey iyagoona halkaasi warbaahinta kula hadlay wuxuu ahaayay annaga haddii aan nahay shacabkii maamulkii iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala gedisnaa waxaan diyaar u nahay inaan helno midnimo iyo dawladnimo ma aqbalayna danaysto ma aqbalayna maxaan ku raahdaa mid dan gaar ah leh iyo mid raba inuu kursiga sii adkaysto waxaan rabaa marka inaan saddex qodob ka hadlo oo gaagaaban koow waxaan rabaa inaan dawladda Kenya iyo waxa ay samaynaysaa ka hadlo iyo fikirkaan ka qabo walaalayaal waxaan wada ogsoonahay dawladda Kenya in niman daba dhilifyaa oo magaca Soomaaliya oo mas'uuliyad aan ku aaminay ay shalay heshiis kula galeen baddi Soomaaliyeed maantana ay maraysa heerka ay maraysaan wada garanayn kuwii ayaga ahaa iyo kuwa kale soo abaabuleen maanta inay Kismaayo fadhiyaan waxa ay u fadhiyaan ay tahay dhaqaalihii ay macnaha shal qaateen inay meel mariyaan oo dib aan loogu laabanin oo maxaan ku raay Kenya ay dib u qabsanin waxa ilaahay mahadi amaanta inaan rabno annaga reer Galbeharey inaan shucuurtanada muujino dadku ha isnooyeena Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo Jubbaland ha israacdo taas kadib waxaan rabaa wixii lagu sheegay shalay inay caleemasaar yihiin baan rabaa inaan afkaarteeda cadeeyo caleemasaar Axmed Madoobe la lahaay ma ahayn caleemasaar Axmed Madoobe shalay waxa meeshaas lagu caleemasaaray Uhuru Kenyatta oo wakiil ka yahay Aadan Barre Ducaale waxaan rabnaa cadayn inaan bixino cadayn waan idin cadaynayaa shalay waxa ka soo qayb galay caleemasaarkii Uhuru waxa ka soo qayb galay golay baarlamaanka Kenya waxa ka soo qayb galay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ka soo qayb galay wasaaradda gaashaandhiga oo jeneraal ay yimid waad ogtiin alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh waxa maanta meeshan isugu soo banaan baxay bulshada ku nooleed gobolka Gedo ee Galbeharey ayagoo ka cabanaya qaabka loola dhaqmay oo Soomaalida ma qabqablayaasha Soomaaliyeed iyo Kenya nimanka madaxdeeda isu sheegay qaabka oo dhaqmeen ayagoo ka xunbay isu soo baxeen Axmed Madoobe maxay madaxweynaha anaga uu noo ahaa xilligiisana uu dhamaaday laakiin waxaan u aragnaa nimanka ayagoo hadda garab socdo sida Axmed Madoobe uu wax u dilooday biri aad u dilataan horta inuu leeyahay baxanay waxa weeye waxaan isugu soo banaan baxnay arinta ka dhacday Kismaayo taasoo ahayd markii horena la yiri waxa jirtay doorasho markii uu 2-4-8 sano oo uusan gobolka Gedo una imaan waxna ka qaban uu yiri ana isu doortay mar 8 sano haystay oo wuxuu ka qabtay inay jirin oo wuxuu u yimid una jirin oo 8daas Gedo 7 degmo oo Gedo uusan waligiis midna imaan waxna ka qaban markuu ay ka dhacdeen mar labaad uu xoog iyo xeelad kale ta adeegsado yiri baashiba 3 qof laga keeno Xamdi Maxamed Aadan Kalsan TV magaalada Galbeharey ee xarunta gobolka Gedo